صلاة مالين تعيدة مساجدك صلاة وحى لجليا هل ساعة يبربا لجليا ووقت لجلها ووضم بيوم هل ساعة يبرها ضيد إن شاء الله صلاة ظهر لجليا ضد ميلفك فكأي معنا هي waxaa sunnaa maalinkaas qofku waxba inuu san cunin isagoo sooman uu yimaado dariiqu ku yimid maana dariiq kale ku laabto oo duxiyadiisana uu qalo oo ka bilaabo ayada waxa ugu horeeya ayaa sunnaa marka waqtiga si loogu soo tala galo hal saac iyo bar salaada insha Allah waa la gelayaa waana ugu dambayn dumarku waxay leeyihiin qaybta kore ayay leeyihiin way ku tukanayaan raguna waxay leeyihiin gudaha iyo banaanka ay leeyihiin baabuurta la soo kaxaysanaya meelaha la dhigayo ha lagu didaalo in laga ilaaliyo in jidka la isku gooyo oo baabuurta waxa weeyaan wadada dhexdeeda la dhigto haddii idinka buuxsanta meelaha korkoro iyo geesaha la iska dhiganaya insha Allah waqtiga ha lagu soo tala galo qofku inuu dharka fiican ugu fiican soo qaato inuu tiibka ugu wanaagsan soo marsado inuu takbiirta qaado sadaqa wuxuu la bixi kara la baxo hana ka soo taginina maalinkaas xoogaagii Soomaaliga xataa oo waxa weeyaan boqol kun iyo ina soo qaadaan oo masaakiinta kaga farxisaan ilmaha yar yar ka aasiisaan ka soo taginina waxa qiil laga dhigtay waayahan dambe lacag ma hayo EFC ugu jirtaa inuu sarifuusan doonahay inta badan markaasuu leeyahay ma hayo miskiin kasta wuxuu ku dhaafayaa hadda ma hayo maxaan ku sameeyaa EFC ga sadaqada ku baxaysa si asaga dadka badankooda hadda tugsada lambarada waa wada haystaan waxaan haysan baaba naadir way fahmeen ayaga laftigooda dadka in EFC iskugu tageen ayaga marka waxa weeye ayaguna lambarkooda soo qaateen marka maalinka iyada waxa ku didaashaa inaad soo qaadato lacag ilmaha aad soo kaxaynaysi waxa siisaa lacag u dhiib hooyooyinka ku soo raacaya u dhiib waxa tiraada noo sadaqeeyo masaakiinta noo siiyo dumarka ha siiyeen ragga ha la siiyo masaakiinta tuugsanaysa ha la siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa noogu naxariisanaya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين